iga raali ahaada taleefon baa iga gooyey khadka anoo ah cabdinaasir shiraferey maamulaha dugsiga hoose dhexe sare alnuur marka maadaama aan iskuulkan xoogaa muddo badan aan khibrad ahaan aan filayo inaan maaragtay ulahayn su-aalaha ayaan marka waxaan weydiinaya maamulaha si asagana u anfacdo iskuulkan u anfacdo idinkana ini anfacdo marka maamulo aad iyo aad baa u mahadsantahay warbixintaada khayr allah ku siiyo waxaan ku weydiinayaa iskuulka waxaa tiri fasalka 7aad buu ku ogyahay fasal 8aad inuu yeesho oo muhiim ah maxaa u diiday iskuulka waa su'aal fiican sheekh sidaa sheegtay weeye fasalkan iskoolkan waxa ugu sarreeya fasalka 7aad sanadkii hadda ahaa iyo sanadkii ka horreeyay labadaas sanaba 8aad baan yeelanay ardadii 8aad u soo baastay waxa loo waayay horta sanadka ka horreeyay waxa loo waayay meel la fariisiyo iyo macallimiin taas ayaa kaliftay in bedel la siiyo ardadii 7aad ka soo baastay 8aad ka noqonaysay waxayna u wareegeen gaalkacyo iyo Bursalax iyo Galdogo sanadkan hadda ahna dhismihii wuu jiray laakiin macallimiin baan jirinin iska daa macallimiin 8aad in la hele saacadan hadda ah fasalada 7aad ayaa jooga laba fasal baa noo bannaan maalin walba markaan galno oo macallimiintu waa 5 marka ay galaan 5 fasal laba bannaanka taala sidaas waxaad ku dareemaysaa macallimiin yaraantana waxa kalifaya waa garanka dhan waxa weeye qoonda hadda aan anagu gacanta ugu hayno xag mushaarka ah oo adkaatay oo aan haynin iyo tayadii macallinka la qaadan lahaa laftirkiisa oo aan la helaynba aniga hadda in la hadlayo waxa ii qorshaysnayd sanadkan maadaama dhaqaaluhu iska yaraa aniga mushaarka guriga igu tala galeen inaan siiyo shakhsi aan ku kireeyo macallina laakiin nasiib darro lacagtaydiina way yaraatay oo lacag qof meelaha jooga magaalkacyo laga keena ama lagu kireyn lahaa ma aysan noqonin sidoo kaleeto macallin taya leh deegaanka waa laga waayay oo sideen oo kale dadka u caawiya marka waa dareemi kartaa dhaqaalaha xaggiisii bay ka fadhiisatay 8aadkii tayadiina waa ka fadhidaa marka sidaasaa lagu kaliftay inaan maaragtaa 8aadka iska wareejino iska dhiibno waayahay waxaa kaloo ii muuqata inaa xilli imtixaan aad ku jirtaan ardadii qaar ka midana imtixaan bay ku jiraan qaarna qurac ay fadhiyaan maxaa kalifay marka in qaarna qurac ay fadhiyaan qaarna imtixaan ay ku jiraan waxaa kalifay ardada markuu imtixaanka galaya wuxuu u baahan yahay ilaalo u baahan yahay sidii laba fasal ay bannaanka noogu fadhin jireen marka xiisadaha la qaadanayo bay kuwaana u fadhinayaan 3aad afraad 5aad 6aad 7aad afarta fasal baan hadda waqtigan xaadirka xaraynay 3aad iyo 2aad iyo 1aadna bannaankay fadhiyaan waxaan rabnaa macallimiintan marka ay ka bogaan kuwaan ilaalada oo ay jeekimaan oo warqadaha laga xareeyo inaan kuwa kala gelin macallimiinta oo yar baa kaliftay waa gartay waxaan kaloo aan arkayay saakay waqti hore aan inii yimid ardada waxaan arkayay inay yimaadeen 9kii subaxnimo ilaa iyo qaar xataa macnaha ka socday kadib iskuuladana sidaan ku naqaanay 7 iyo barka 8 7 la galaa marka maxaa kalifay waxaana la ii sheegay 11 barka in ardayga la fasaxayo saa darteed maalin walba uu 2 saac wax noocaas oo u dhigto maxaa kalifay marka ardaygan inuu barqadiina iskuulka yimaado isla 2 saac kadibna uu iskuulkii uu ka tago okay waa su'aal wanaagsan horta ardaydu inay timaado 2 saac iyo 45 way qaanuunka anaga noo degsan waxa kalifayna waxa weeye meesha horta waa tuulo magaalo weyn ma aha qaanuunka iskuul lahaay oo dhan laguma dhaqmi karo dugsiyo quraan baa la dhigtaa dadkuna aad u qiimeeyaa diinta iyo quraanka bedelkii uu Soomaaliga maaragtaa waqti badan ku dhumin lahaa quraanka ku dhumiyo ayaa dadku aaminsan yahay waana fikir fiican oo ilmo xamaad diinta islaamka muhiim weeye mar walba hase ahaatee sanadba sanadka ka dambeeya waxaan moodaa waqti inuu noo kordhayo 3 saac oo xiran baan geli jirnay waagi hore laakiin hadda sida caadiga ah waxaan galnaa 2 saac iyo 45 hawsha kaliftay waa taa gelinka dambe ardada la sii daayana si haddiisan mucjiso kala dhicinin oo macallin naga xanuunsanay ama wax kala jirinin 6 saac baan sii daynayo oo adigu maaragtaa waxaa maalinkii baxaa ilaa 4 xiso sida caadiga jadwalka marka waxa weeye dadku aad buu uga dambeeyaa oo aad buu u qiimeeyaa quraanka iyo diinta kitaabaa jira diinta islaamka la raacdo waqti la siiyo 3 saac wixii ka horeeya salaad subaxa kitaabay galaan dugsiyada quraanka aadaan oo ay 10 duwan ka kala qaataan ama subaxa sida macallimiintu noo cadeynayaan
iyo deegaanka oo aan ahayn qaab magaalo u dhisnayn oo aan diyaarsanayn waxaan arki jirnay magaalooyinka waaweyn iyadoo ardayga halka saac iyo bar uu qur-aanka ka soo baxo iskoolka aado waxaan kaloo arki jirnay macallinka qur-aanka dhigaya oo inta la soo waco loo macallin ardada noo soo fasax laftigeedu waxay ku tusaysaa xoogaa dadku wuxuu qiimeynayaa xagga waxbarashada maadiga ah marka qof walba oo maaragta muslimana waxaa ku muhiimsan inuu maaragta diiniga marka hore awoodda saaro sidaasaana dadku u badan yahay isagoo dadku iska tuula ay tahay dhaqanka iyo waxbarashada si fiican ula haysan cid walbana way ogtahay wasaaradda xataa way ogtahay waqtiga la galo deegaanku isagaa waqtiga jaangoosta waqtiga iskoolka la galaya iyo waqtiga laga baxaayo marka taasaa nagu kaliftay inaan maaragta xilligaas ardadu timaado khayr aad iyo aad baad u mahadsan tahay maamule maadaama imtixaan iyo aad ku jirtaan oo waqti badan ayna haynin su-aale intaa ka badan waxba hadda waxaan filayaa waqti inayna u haynin marka baahidiinana waan aragnaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan rajaynaynaa inuu baahidiinana idiin fududeeyo dadka dibaddana waxaan rajaynayaa inay maaragtay sadaqadooda ay si fiican ula baxaan halkan waxaa ila fadhiya cabdullaahi yemani cabdullaahi xiirey oo dadka dibadda ku nool marka sidaa darteed cabdullaahi dadka dibadda maadaama iskuulkan hadda aad maanta booqasho aad ku timid maxaad maaragtay dadka dibadda aad kula dardaarmaysaa iyo iskuulka labadaba bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina nabiyina mawlana axmed nabiyi wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam runtii soomaalidu waxay tiraahdaa laba kala baranaysaa warla dadka dibadda jooga iyo dadkan dhulka soomaaliya jooga khaasatan meeshaan ka joognaa waa laba qaybood bay kala yihiin xagga waxbarashada maxaa yeelay sida hadda maamuluu ka dhawaajiyay waxbarashada waxay bilaabataa 3 saac adduunka ay joogaan iyo dunidaas horumartayna 3 saac wax iskool aadaa ma jiraan marka waa xoogaa waa dib u dhac iyo weliba waqtiga la sii daynayo 6 saac oo duhurnimo haddana marka gaab weyn baa xaggaas ka jira xagga waxbarashada oo ilmuhu galaaskii u qaadan lahaa iyo duruusta waa ka kala dhimanta midda kale imtixaanaadka marka la qaadayo dugsiyada oo shahaadiga sida galaaska 8 galaaska 12aad ardayga waxaa laga qaadaa waxa la wuxuu iskuulka soo dhigtay sanadka 1 ilaa 8aad ardayga 2 saac ama 3 saac oo kaliya xisooyin qaatayna waa ku yartay hab imtixaanka inuu ka wada jawaabo marka Allah salaam lana midaas xagga iskoolku baahi weyn baa ka muuqata beena laacay darbi uma dhisna fasalladii waa ilaa galaaska 7aad ilmahan hadday hadda ilaa galaaska 8aad loogu bataro dugsi sare xataa inay helaan bay ku khasban yihiin maxaa yeelay waa meel tuulo ah meesha magaalada gaarkacya ugu dhow iskool ay u aadaan bursa meel liida ilmo subaxdii bursa xafal ah fiidkii ka soo yiri waa adagta awalba iska dayana hadda marka waxaan kula talin lahaa ummadda khayrka jecel ilaahay ka sokow mas'uuliyadda qaatay in kol ay ilaahay xaqiiba wax walba ka imaanaya rabbina la bariyo kaalmo weyna la fiiriyo haddii ilaahay nafta noogu sugo insha allah ma garat marka waa kaas iskoolku waa hadda labada iskool farq weyn baa u dhaxeeya ama kulliyadana waa tagay waa al-nuur waa meel dhisan hurdale cunale jiif leh waxbarasho leh maamul iyo maareen is haysto oo nooc walba ka taagan laakiin hadda sida maanta iga muuqata iskuulkan xoogaa waxaad moodaa dib u dhac weyn baa ka jira xagga waxbarashada xagga dhismaha xagga macallimiinta marka allah sahlo baahidaas rabbi iyo wixii ilaahay khayr kii ugu soo dhigo ummadda baa dhammaystiri kara insha allah kun khayr cabdulla aad iyo aad baad u mahadsantahay marka waxaan dib ugu noqonayaa maamulaha inuu kelmad yiraahdo soona koobo horta waxaan ku gabagabaynayaa warkayga gabdhaha maxamuud ibraahim si gaar ah u salaamaya waa mahadsantihiin walaalayaal waxaad u dadaalaysaanna waa ilmihiinni insha allahu tacaala abaalkeedna waad helaysaan adduunka iyo aakhira labadaba waxaan rabaa inaan kaloo ku darsado waa run ardada waxay imaanaysaa 2 saac iyo 45 baa xisasku gelayaan 6 saac baa la baxaa isla macallimiintii dhigaysay oo ardada gaabka ku hayay oo macallimiintu ku yaraayeen baa ku soo noqda duhurkii oo ardada duhurkiina wax u dhiga macallimiinta oo yar iyo dhaqaale la'aan haysata macallimiin kale in lagu kireeyo darteed ah baa wax walba noo horseeday
dadkuna waxay jecel yihiin wax qurux badan inay iska arkaan laakiin wax qurux badan oo dhammaystiran oo maamul iyo nidaam iyo meel walba isku xiranin la iskama helee waxaa lagu helaa diyaargarow iyo dhaqaale waxaan farayaa qof kasta oo maaragta deegaanka Dar es Salaam ku abtirsada ama ka soo jeeda waxaan ku leeyahay aad baad uga gaabisay deegaankii nala nooc baad tahay annaga oo kala tahay dhalinyaraad tahay wax garad baad tahay culumaad tahay 244 bay ahaayeen ardada diiwaanka ku jirta 227 arday oo xaadira oo adiga kula jifa ah weeyaan oo aan la barxin oo aan deegaan kale ka imaanin oo aan cid kale kula tartami karin deegaanka waxaan leeyahay fursad muhiim ah baan idin soo abaabulnay inaad ka faa'iidaysataan ay mudan tahay waan idin salaamaya dhammaantiin ilaahay baan xog khiyaaray waraysigii halkaas noogu dhammaaday ardada qaar baa imtixaan hadda ku jira qaarkii kale oo kuwa geedka fadhiya iskuulka sidaad u ogtiin Madeyr ma lahan dhulkaas bannaan weeye musqulihiisii halkaas weeye hadeed anigu waxaan jaaliyada dibadda aan u soo jeedinayaa iyo cid kasta oo aragta kiligaan yarka dadka kan dad danyara weeye dad inii baahan weeye gacmadooda jir bay wax ku gooyaan baa la yiri sidaa darteed inaad caawisaan xoolihiinna aad sadaqaysataan ka qayb qaadataan wax tartaan baahida jirta aad dabooshaan intaad maaragtay waxyaabo kale aad wax ku bixin lahaydeenoo sida maaragtay waxyaabo badan oo loo baahnaynoo waxaan anugu aad u doorbidayaa inaad qalinka iyo warqadda aad xoogga saadhaan saas baana dadku ay horumar ku gaari karaan haddaad doonaysaan inay asaagooda la tartamaan wax qabsadaan sidaa darteed waxaan leeyahay meel kasta oo iskuul ah oo wax lagu dhigayo oo reerku uu leeyahay taageera oo gacan qabta oo waqtigiina ku bixiya sadaqana weyniin noqonaysaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi